السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكينا maanta waxaan ooga hadlaynaa qaybtii labaad ee khulaasadii aan ooga hadlaynay nabigeena iyo asxaabtiisii. qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa nabiga dhalashadiisa iyo soo barbaaritaankiisii. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhashay sanadii caamul fiil maalin isniina oo ay bishii rabiical awal ku beegnay 12 markuu dhashay waxay hooyadii ugu bishaareysay awowgiis Cabdulmudallib oo aad ugu farxay dhalashadiisa wuxuuna u bixiyay magaca Muhammad oo inta badan carabtii waagaas ay la bixi jirin. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa nuujisay Suwayda oo ahayd jaariyadii Abu Lahab horeyna u soo nuujisay nabiga adeerkiis Hamza. waxaa kale oo nabiga soo nuujisay Xaliimatu Sacdiya oo uu qabay Xaaris bin Abdul Uzza oo kunyadiisa ama naanaystiisa la oran jiray Abi Kabshe. naanaystaas oo mararka qaar Quraysh ugu xijirtay nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Xaliimatu Sacdiya iyo saygeeda waxay ahaayeen reer guuraa. nabigana waxay la aadeen dhanka baadiyaha waxayna soo celiyeen asoo 2 sano jir ah. waxayna ka codsadeen hooyadiis mar labaad inay la laabtaan wayna ka ogolaatay hooyadii. markii labaad ay soo celiyeen nabiga wuxuu jiray 5 sano. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadiis ayuu la noolaa ilaa uu ka 6 sano jirsaday. hooyadiina way geeriyootay asagoo jira 6 sano waxaana noloshiisa kafaala qaaday awowgiis Cabdulmudallib oo aad u jeclaa aadna u dhaqaaleyn jiray. hase yeeshee awowgii wuu geeriyooday 2 sano kadib. nabigana wuxuu jirsaday 8 sano. waxaa haddana kafaala qaaday adeerkiis Abi Daalib oo uu la noolaa ilaa uu ka hana qaaday.